soo dhawaada gabadhan kambanigan ay imaatay si ay shaqo u hesho kadib ninkii shirkadda iska lahay shaqadii wuu u ogolaanaa waraaqadan uu dhiibaa wuxuu ku dhahaa saxiix markii uu arkay inay waraaqadii saxiixday baashan intuu soo qabto gacanta uga xiraa iyadoo yaabanay waxay weydiinay waxaan gacanta iga xirtay maxaa waaye laakiin isagu u jawaabina intuu remote-kan taabta iyadii waxa ku dhagaya maanso wuxuuna ku dhahaa baashan aan gacanta ka xiray waxay igu caawisaa in shaqaaliyeeshiidu ay si fiican shaqada u qabsadaan mar labaad oo remote-kii taabana iyadana maasadii ku dhagayso iyadoo xanaaqsanay meeshii isaga soo bixay shaqaalayaasha dhinacooda soo aaday gabadhan meeshan maraysay la hadlay laakiin ma u jawaabayso gabadhan kaloo meesha fadhisay intay u timaaday waxay ku dhahaysaa ninka booska maxaa ka qaldan baashan gacanta iga xiray maxuu ka wadaa laakiin gabadha kale waxay tusinaysaa in iyaduna ay baashas camal ku xiran tahay xogaa kadib ninkan kaloo shaqaalayaasha kamid ah waxay weydiinay waxa meesha ka dhacay ma fahansiin kartiin isaguna intuu u sheegay inay isdejiso oo shaqadeeda ay si fiican u qabsato meeshii isaga taga midkaana markii oo baxay oo kursigiisii ku fadhiistay maasa lagu dhijinaa maadaama uu gabadha la hadlay midkii booska intuu soo kor istaago wuxuu ku dhahaa shaqo aan lagu dirsanaa gashay sidaas darteed ciqaabta waa inaa martaa isla markiina waqtigii bareega ayaa inta la gaaro wuxuu ku dhahaa haddaba waa nii sheegay haddii aad 10 daqiiqo kadib soo dahdeen maasidiina diyaar waaye kadib way soo baxayaan waxay soo aadayaan dhinaca meeshii ay ku quraaca lahaayeen shaqaalayaashii meeshii ku quraacanayeen ayay intii u timaaday waxay ku dhahaysaa idinka maxaa ninka qaldan waxaan maxaa waaye aniga ma fahansiisiin gabadhana waxay weydiinay heshiiska ma iska akhrisay markii aad shirkadan ku soo biiraysay iyaduna waxay taagan tahay heshiiska maxaa ku qornaa aniga ma akhrin waa iska saxiixeen midkaana wuxuu u sheegay inay heshiiska qaybta hoose uga qorneed in baashan gacanta lagaaga dhiji doono waxay dhahaysaa marka sidaas deeta hadda kadib heshiiska waa ka baxay shirkadan ma wareebo ka shaqeynaya idinkuna waa ni salaama midkaana mar labaad wuxuu u sheegay inay waraaqada qaybta hoose uga qorneed heshiiskan ma ka bixi kartay ilaa ay bil ka soo wareegato waxay weydiinay marka idinka waqti aad u dheer meeshan joogteen marka bisha markay dhamaatay heshiiska maxaa uga bixi weydeen midkaana wuxuu ku dhahaa anaga meeshan waxa u nimaanay inaan lacag ka qaadano marka maasa haddii rabtaa nugu dhigto waa iska joogaynaa iyadoo dhehaysa laakiin kambaniyada kale sidaas ma sameeyaan ayaa waxaa lagu dhijinaa maasadii maadaama waqtigii quraacda uu dhammaaday maalmo kadib waxaa imaanaya ninkii kambaniga iska lahay macnaha ninka hadda dadka maasada ku dhijinaya aabihiisa wiilkiisa wuxuu ku dhahaa shaqo fiican qabatay isna wuxuu dhahaa waxaas waa ligu dhalay xoogaa kadib mid shaqaalayaashiisa kamid oo wuxuu ku dhijinaa maasadii macnaha aabahay hortiisa igu ammaan kadib odagiyo wuxuu u sheegaya inuu wiilkiisu yahay qofka ugu wanaagsan oo kambanigan soo maray oona jirin qof isaga ka wanaagsan gabadhii ku xigtoo maasadii ku dhijinaa iyaduna waxay taagan tahay shaqada si kala kacsan ay u socotaa kadib midaana intay soo istaagtay shaqaalayaasha waxay ku dhahay idinka maxaa idinka qaldan iyadoo odaygii uu sheegay rabtay inuu wiilkeedu dadka maasa ku dhijiyo ayuu maasadii ku dhijinaa kadib odaygu wuxuu weydiinaa gabadhan maxaa ku dhacay isaguna wuxuu dhahaa ma aqaani waxaa laga yaabaa inay jinniyaal ku soo degeen midkan shaqaalayaasha kamid ah ayaa waxaa lagu dhahaa orod intaa gabadhan wadid xaaladeeda waa inaad soo ogaataa labadooda iyagoo meeshaan ku jiray waxay ku qancinaysaa inay ninkan fashilaan ayna odayga u sheegaan wax walba uu sameeyo xoogaa kadib intay meeshii ka soo baxaanay saaxiibadood kale oo shaqaalaha la ahay waxay u sheegayaan inay rabaan inay midkan fashilaan ayadiiya waxay ku dhahaysaa wiilkaaga gacmahu dadka wuxuu uga xiray bahashan kadib maasoo ku dhijinaa shaqaalayaashii kale intay soo istaagaanay ayagana waxay tusayaan inay bahashan gacanta uga xiran tahay markii oo maasadii ku dhijiyeen dhammaantood intay gacantii isqabsadaan ee odaygiina gacanta ka taabanayaan isagana maasadii inta ku dhigto meesha ku dhaca odaygu intuu xanaaqo wiilkiisa wuxuu ku dhahaa kuwan maasa badan waa inaa ku dhijisaa shinjibaar uga dhig midaana wixii ay soo sameynayso dhan riyay aayeen maalin cadeeyay riyoonaysa weli heshiiskii maysan saxiixin waxay arkay inay shaqaalaha kale aysan dhibaato haysan ee waxaan iyadu kaliya ay sawiratay kadib ninkii booska ayay waxay ku dhahaysaa aniga hadda heshiiskan masiixiixayay abuukaatayga waa inaa u geeyaa kadib way iska soo tegay kadib waxaan arkaynaa baashii gacanta looga xirayay inay sax tahay oo meeshan taallo midkan wuxuu taagan yahay adiga nasiibkii ka badatay muuqaalkun intaas ka daalka soo gaarta leegno saar ninkan odayga isagoo meeshan kaba ka gadan rabo ayaa midii kaba gadaysa waxay ku dhahaysaa maxaa meeshan ka sameynayma waxaa isku dayay inaa kaba gadato isagana wuxuu ku dhahaa maxaa diiday qoftan magana lagu magacaabaa odayga way ku xarakeynayaan waxayna ku dhahaysaa meeshan aaday qaali u tahay kabahana qaali waaye marka adigoo kale ma gadan karaan iyagoo wada doodaya waxaa u imaanaya ninkii meesha kabaha iska lahay midii maganaheedna wuxuu ku dhahaa soo bax wax yaraa rabaa inaa kula hadlee markii ay timaado meeshii looga wacayna waxay arkaysaa inay ka soo horreysay saaxiibadeed Sydney midkii booska ah ayaa wuxuu ku dhahaa waxaan idinkugu wacay waxaan idiin hayaa war kale kacsan warkaasna wax kale ma ahan ee aniga waa li dalacsiiyey sidoo kale labadiina qof idinka midana wuxuu qaadanaa booskii aniga liga dalacsiiyey midaana way isla fiican tahay waxay taagan tahay meeshaan waqti aad u badan ka shaqeynaya marka aniga xaq u leh booskan inaa helo kadib midka booska ah magan wuxuu u sheegay inaana loo baahnayn inta sano oo qofku shaqeynaya si oo booskan u helo isagoo hadalkiisa sii wato wuxuu dhahaa ninka aniga iga sareeya oo booskayga ah wuxuu iga dalbaday in aan booskan ku wareejiyo qofka iibiyo alaabta ugu badan intaan la gaarin 6 habiinimo qofkaasna uu xaq u leeyahay haddana waqtiga waxaa ka dhiman wax hal saac ka yar marka waa inaa baxdiin oo aad iibisiin alaabta ugu badan kadib magan iyo saaxiibadeed Sydney meeshii isaga tagayaan si ay macaamiisha ugu kala hormaraan waqtigii la ballamiyay mar ay ka dhiman tahay 40 daqiiqo ayaa magan saaxiibadeed waxay ku dhaheen ninkaas odayga wax inuu gadanayo ma u maleysaa meesha iska marmarooya Sydneyna saaxiibadeed waxay u sheegaysaa inay iyada ka soo iibinayso alaabta rabo isla markiina ninkaana irida ka soo galaya maganna waxay taagan tahay ninkan waa midka dalacsiinteeda ku heli lahaay intay u timaaday
waxay ku dhehaysaa mudane dukaankeena ku soo dhawow maxaan ka caawiyaa kaba $300 jooga intuu soo qaato wuxuu dhahaa aniga kabahaana rabaa iyadana si ay alaab badan u iibisay intay soo qabata kaba kale oo $700 joogay waxay dhehaysaa kabahaana ka khatarsan marka kuwan daa qaadata ka waran kabahana xayisiin badan ay u samaynaysaa si uu u qaato ugu dambayn way ku guulaysanaysaa inay ku qanciso wuxuuna ku dhahaa kuwo ila eg ii soo qabo waqtigii la ballamiyey waxaa ka dhiman keliya 9 daqiiqo kadib ninkii waxay weydiinaysaa kabahan oo dhan inaa qaadato miyaa rabtaa isna quluubtuu ka jibinaa wuxuu dhahaa ma u baahni kabahan inaa qaato markii ay sababta weydiiso wuxuu ku dhahaa aniga ma rabi kabahan aadka qaaliga u ah inaan qaato meeshaana waxaan u imaaday wax kale ma ahan ee waxaan rabay kabahan inay ila eg yihiin iyo in kale inaan tijaabiyo haddana waxaan ogaaday kabahan inay ila eg yihiin waxaana ka iibsan doonaa onlineka haddana adiga waa ku salaamaa markii uu meeshii isaga tegay waxay arkaysaa gabadhii kale Sydney oo kaba badan iibisay kartoomadiina sii gelinaysa qolka waardiyaasha midaan xaasidad weyn waaye isla markii intay soo orday Sydney qolkii kor uga soo xiraysaa waxay weydiinayeen marka sababta ay qolka ugu xirtay iyadana waxay ku dhahaysaa iga raali noqo booskan aniga xaq u leh kabihii intay soo diyaarisay ninkii odaga ay u keenaysaa waxayna weydiinaysaa inuu lacagta bixiyay iyo in kale kadib odaga waxa weydiinaa aawa gabadhii kale oo Sydney ahayd waxay u sheegay inay ku jirto qolka waardiyaasha waqtigii la bilimeyna waxa ka dhiman kaliya 1 daqiiqo haddana odayga Megan waxa weydiinaa sababta ay rasiidka magaceeda ugu qortay maadaama aysan iyadoo alaabta ka iibin markii ay u jawaabi weysana waxa uu sheegaa ninka meeshan iskale inuu isaga yahay shuruudahana uu isagu sameeyay dalacsiinta kadib odagu waxa uu isugu yeeraa Megan iyo midkii kale iyagana meeshii soo gaaraya Sydney oo intuu si qaas ah ugu yeero wuxuu ku dhahaa hambalyo booskan adiga ku guuleystay hadda kadibna adiga xaq u leh booskan midii Megan aheedna markii ay warkaas maqasho cusbada ku kaacayso odayguna ma u naxariisanayo waxa uu sheegaa inuu shaqada ka buriyay muuqaalkan intaanu ku ekayay hadda halkaas soo gaarto like noo saar soo dhawaada gabadha nin ay isku shaqo yihiin ayaa gurigeeda ugu imaaday kadib albaabka gurigeeda lagu soo gargaraacay ninkii waxa ku dhehaysaa orod sariirta hoosteeda gal albaabkii la gargaraacay markii ay furto waxay arkaysaa inuu yahay macalinka iyada jiimka u dhigo laakiin mar labaad albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca macalinkii jiimka u dhigayna waxay ku dhehaysaa orod adigana sariirta gal midkii sariirta ku hoos jira wuxuu dhahaa soo dhawow magacayga Mike waayo qoftaan shaqada isku baran isna wuxuu dhahaa magacayga Ethan waayo qoftaan macalinkeeda jiimkaan ahay albaabkii la gargaraacay markii ay furto waxay arkaysaa inuu yahay nin aysan aqoon oo degdegsan intuu ku dhaho ay qasin ayuu isagoo degdegsan guriga gudaha u soo galaa intuu meeshan istaago wuxuu ku dhahaa waxaan rabaa in aan iska baro horta marka koowaad baashan ii qaba intaan hadlaayana hadalkayga iga soo dhaxgelin buugana u jeedid waa buugii aad wax ku qori jirtay markii aad ahayd fasalka 7 maadaama aan aniga iyo adigana isku fasal ahayn buugan waxaan ku hayo waqti aad u dheer maxaad leedahay hadda laakiin mar kale oo saddexaad albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca kuwii sariirta ku hoos jirana waa yaabiyiin ninkii buuga u waday waxay ku dhahaysaa orod sariirta hoos gal isna wuxuu la yaabiyaa sababta sidaas u dhahayso markii uu sariirta soo hoos galo wuxuu arkaa inay laba nin oo kale sariirta ku hoos jiraan kadib midkaana wuxuu ku dhahaa magacayga Mike waayo qoftaana shaqada isku baran midkaana wuxuu u sheegaa inuu yahay macalinkeeda jiimka isna wuxuu dhahaa qoftaa waxa isku baran iskuulka isku fasal ahayn 7 macnaha kadib midkaana saaxiibadiis wuxuu ku dhahaa waxaan xiiseynaa midka albaabka gargaraaca meeshii isku barteen albaabkii la gargaraacay markii ay furto waxay arkaysaa inuu yahay baadiriga kaniisada ay tagto wuxuu u sheegaa inuu meeshan u imaaday inuu iyada ogaado xaaladeeda maadaama aysan ayaantan imaanin kana wuxuu taagan yahay qofkan u imaaday inuu ahay si wanaagsan ay ula hadlaysaabe odaygii baadiriga ah markuu guriga gudaha u soo gala gabadhii wuxuu weydiinaa ayaantan maxaa u imaawaysa maxaa u maqneed iyada oo u jawaabi rabto ayaa mar kale oo afraad albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca odaygii baadiriga ah ayay waxay ku dhahaysaa sidaan inaan ku dhahay ma rabin laakiin adigoo mahadsan sariirta hoosteeda ma geli kartaa hal mar odaygii markii uu sariirtii soo hoos galo wuxuu arkaa in 3 nin oo kale ay meesha ugu soo horreeyeen midkaana wuxuu dhahaa magacayga Mike waayo shaqada dhinaceeda ka socda anigana Ethan ahay dhinaca jiimka ka socda anigana Alex dhinaca iskuulka ka socda odaygu kuwan wuxuu u sheegaa inuu yahay baadiri uuna kaniisada ka imaaday gabadhiina markii ay furtay albaabkii la gargaraacay waxay arkaysaa inuu yahay ninkeedii saxda ahay markii uu guriga gudaha u soo galo wuxuu arkaa alaabtii ay wateen nimankii isaga ka horeeyay kadib xaaskiisa wuxuu weydiinaa waxaan maxay noo ahaayeen ma waxaa jira qof qaraabadaada ah oo ka dhintay isla markiina waxa intay u soo uraan wuxuu weydiinaa mar labaad cabitaankan ii soo uraayo muxuu ahay runtiisa waayana midkaana cabooyo mar kale oo shanaad ayaa albaabka gurigeeda lagu soo gargaraacay intay jiniyaal qof ay ku soo degeen iska dhigtay ninkeeda waxay ku dhahaysaa sariirta hoosteeda waa inaad gashaa intiisa jiniyaasheeda soo wada degin markii uu ninkii sariirtii soo hoos galay midkaana wuxuu dhahaa Mike from job Ether from gym Alex from school Patrick from church midkaan isagoo nimankan isbari rabo ayaa midka kale wuxuu ku dhahaa noo sheegin waana qaanaa waana maqalnay inaa ninkeeda saxda tahay iyadii markii albaabkii furtay waxay arkaysaa markaan qofka albaabka gargaraaca inuu gabar yahay iyadoo xanaaqsan ayay intay gudaha soo gashay waxay dhahaysaa ninkayga GPS-kii ugu xirnaa wuxuu sheegaa inuu meeshan joogay qiyaanuhaas ii soo bixi xariifkan wuxuu taagan yahay xaaskiygii waayo mar kale oo lixaad ayaa ta albaabkii lagu soo gargaraacay gabartii u timaada waxay ku dhahaysaa waxaa laga yaabaa ninkaaga inuu sariirta ku hoos jiray ka fiiri sariirtii intay soo hoos gashay ayaa ninkeedu wuxuu ku dhahaa waa ku salaamay xaaladaada ka waran iyaduna waxay weydiinay maxaa ku dhacay meeshan maxaa uga buuxdeen markii ay albaabku furto waxay aragtay inuu nin boolis yahay kadib wuxuu ku dhahay dariska qaylo darteed ka soo dacwooday gurigaaga waa inaa baara intuu arko in guriga laga buuxo ayuu wuxuu dhahaa dhamaantiin xabsiga idin geena muuqaalkan intaas ka dalka soo gaartay like noo saar